بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدي دلهان تيمبا ميل كستو دافع الدنيا داد كتشوكتان كسور دوادا برنامج كيني فانكا يسوغانتا إيو تطبعات كان وانيغا idinka iyo toddobaadkan iyo martida barnaamijka ilahaan idinaysa abwaanka sabaxa hal abuun curin suuban suugaanyahan murti iyo maanso mucweyn dhaadiya waxaabaan u aqaanaa fayeenka maanka iyo garashada wehelka ay la jaar iyo jaah yihiin kumanaan da'yara oo dhibanayaal u ah nolosha waxbayaan kusii talax teginay toddobaadkan waxaan sugaantiisa la lafaguri doonaa oo aanu la falanqayn doonaa abwaan cabdiraxiin sidiiq heelo oo aad ku barateen suugaan xambaarsan dareen bulsho iyo dareen jacayl oo qoto dheer farxadda waan kala didnaa waxaan gashadaa diriis maryaha duugeed qubtan duxiyo iidaan macuno dugaag waxaan qaybsanaa hambada aadaadisan dhacdooyinka ibtilaysan iyo waqtiyada sargaxan ee noloshu waxa ay suureeyaan oo ay suntaan rajo la'aan iyo niyad xumo amaba subax wanaagsan oo rajo wanaagsan iyo qalbi wanaagsan la waabariisata abwaan cabdiraxiin sidiiq heelo waxa uu suugaantiisa ugu heeliyaa kumanaan dhalinyaro ah oo mustaqbalkoodu uu mugdi ku jiro waxa ay da'yartaasi naftooda ay ku habaan suugaan waaga barigiisa ay ku indhafurtaan amaba ay ku quraacdaan waxa ay midhihiisa iyo suugaantiisu nal iyo naxariis ay u yihiin kuwa aan ku talagalahayn inay cadceedda u soo baxday ay iyagoo nabada ay u dhacdo noloshooduna ay tahay miridho iyo sakino daldalay markay noloshii naceen aqoon-yahana ma darsan xaalada darbi jiif ku yaal waxa uu garyaqaan uu u yahay kuwo waayay inay helaan wixii ay xaq u lahaayeen daa kastoo ay yihiin waxa ay sugaantiisu ay u tahay ciiltiro nololeed kumanaan lahana qaaday ama la korayba ciil iyo cidlo abwaan cabdiraxiin sidiiq heelo afhayeenka nolosha iyo ciiltiraha kuwa ciilan barbadaacun go-ay markay waayeen dabiibe barbay dhaxamuhu dileen tufaankii qabowga daran barbaadada soo rogmaday habeen dumay uu la tegi naftooda barbaad daldalay markay noloshii naceen yooma yoom yaa salaam tiraabtixeed lagu ballaysimay heeso dhadhan iyo dareen ku iidaaman oo aanad marnaba dhegtu maqal baajinahayn indhihuna libiqsi jeesanahayn ayaa barnaamijkan ka qayb ah dayaxa iyo xidigahaynu siraadi doonaa haddayna inaga daminba bal aan laaco heestii sida weyn maanka iyo maskaxda u dhex jibaaxday ee taswiirtan dayaxa jeclaystay inaan dul suro inta kale haynugu daro taswiirtaadan dayaxa jeclaystay inaan dul sudho waxaan ka cabsaday dartaa inay xidiguhu damaan
weli waxaynu saarannahay markabkii la magac baxay bulshooyinkii dareenka nolosha ee uu naaquudaha ka ahaa abwaan cabdiraxiin sidiiq heelo. waa barnaamijkeena fankii sugaanta ee aynu bal mar kale jalleecno maansadii iyo nafurkii ugu weynaa ee walaalaha. xuquuq walaalnimo waa maanso dhab ah oo xambaarsan qiso xaqiiqa ah. waxaan markaa aad uga yaabay inantaa weyn 3 arrimood baan ugu bogay. waa midda koowaadee waxay ka baxday waxbarashadeedii iyada oo doonaysa inay dhisto waxbarashada walaasheed. marka labaad waxay uga tanaasushay jacaylkeeda si ay u hesho walaasheed farxad. waa marka saddexaadee waxay hantideeda u hurtay walaasheed si ay iyadu u hesho farxad. xilligii hooyadeen go'daan xilkaaga kor qaadayo xariiqda ku gaadha iyo xanuunkii kugu dhacaa xaqiiqdii igaga culus xawdoo lay dhaafiye dardaarankan meel ku xidho. xilima kugu dambaysay ciyaartii baarcadaha la odhan jiray see aqoon ma u leedahay god sugaaneedka baarcadaha? waxaa lagu xasuustaa inta badan Carays Ciise caan ku ahaa. habeen kale waxaan lahaa waxa u miisaana markaa habluhu gaagaabana magalab bay wada dhasheen gudin baa lagu sarjaray. markaa miisaanka ayay raacaysaa ama ay ku socotaa. aynooxa lagu dhigaa casiis wae beheen cirbaa roob laga sugaa caleengeedahay ku taal caraace laga bogaa caynkii kale waxaan lahaa carrada dowladaha jira haddayna lacay tamaan cibaaraan dhigi lahayn ciyaal duulka caqli daran calwisaada ay hayaan inaan la caraatanaa ciidan uma heli karo annagu cadow mali. abwaanada oo dagaal lama filaana ku soo qaaday 5 dareen oo ay u adeegsadaan suugaanta. maxay tahay sababta? aniga huba inaan lagu kala baxahayn dagaalkan iyo toddobaadkan iyo barnaamijka suugaanta. inta badan suugaanyahanku waxay adeegsadaan ama wadooyinka u maraan inay dadka wax ku fahansiiyaan. waxaa ka mid ah 5 dareema aadamaha. tusaale ahaan ninbaa wuxuu adeegsanayaa dareenkeena arag. dadna wuxuu leeyahay sida geed caleenlo ubax guudka qariyo ay gooni laamuhu ay midiba geesteed hoobaan iskaadhiyo guntin midha ah leedahay. haddaan kuu soo qabto sugaanteeda mid ama laba laga dheexan karo 5 dareemahii aadamaha. tusaale ahaan heesta uu qaado qamar sugaani ee ku siiyey nafta ilaasho waxaa ku jira beydad ka mid a beydad aragga ah oo odhanaya sidii kaymo wada ugbaada ku doogsaday aragtidaada. kaymo wada ugbaada ku doogsaday aragtidaada sidii obax darab ku yaala haddaa saxan asaxa udgoon sidii kaymooda ugbaada ku dogsaday aragtidaada. hal xidhaale abwaan cabdiraxiin sidiiq heelo, haddii lagu yidhaahdo fanka cid ka saar yaad ka saari lahayd? walaal su-aashaa ah fanka yaad odhan lahayd ha laga saaro waxaan odhan lahaa waa maxay saamaynta ay suugaantu ku leedahay bulshada? si uu wakhtigaas ugu dhaafiyo inta ka hadhay waaga siduu u dhegaysanayay baa waxaa kaga soo baxday maanse uu sameeyey maxamed ibraahim warsame hadraawi oo la yidhaahdo dabahuwan marka uu marayo beydadka odhanaya addoonku rabba uma dayo deeqdaada badh ku hantiyey duntii maqan butaba wuxuu degdeg kaaga filay haddaanay ku soo dulquban cadhowla dakaamaya inta uu sare fadhiistay uu shaydaanka iska naaray ayuu ilaahay u mahad celiyey isagoo oo degan ayuu deetana seexday.